أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سلامي أصحاب تقرح بدن كحيران يوتيوب channel كي جوشن ولا شي سود بعد ميل بعد ميدا كجوكتين ومركا لي موقال كلا عصبية ولا شيء أتاكو عصبتها هاي مركو غورس channel كي وحكا عصنا هنا سبسكرايب كي صارتو هذا هو إلى جوج جرتنا وكاغ ما يدلنا إلى جوج استاد سود بعد meel walba adduunyada ka joogtiin like channelka ii saar in si share gareeya saa ujeediin jikada ayaan ka shaqeynayaa insha Allah meeshaan intaan yaraan qabanayaa maxaa la dhahaa korna filterka oo jikadan rabaa inaan soo bixiyo insha Allah haddii alla raali ka dhigo videogan 29ka duubay oo talaadadii aan duubay marka alxamdulillah video kale ka soo hormaro ma fahanteen marka maasha Allah maanta ayuu ilaahay qadari doonaa insha Allah inuu idin soo gaaro haddii ilaahay raali ka dhigo oo sabtiya saa ujeedii meesha waxa ku shubaya xaq slaaq rooti ayaa la marsanaya shukulaatada yar ah marka alxamdu rabbil caalamiin saa ujeediin waxaan yara rabaa inaan kala turtuuro darbigaas maxaa la dhahaa istiraashiir marmarsho ya waxa waaye wax walbo gacan ku haan waaye faanteen jikada mamare waxay iska noqotaa buuq saide ya alaabta meel walbo ay kala tuurnaan waxa leedahay bismillaah rahmaan sab ma qabna anaga tiradeeda waa la yaabay ma fahanteen waxaa keenaya marka in caruurta meesha wiilka yaala inaysan dhaqanin ee wiil kale ay doonaan waa loo sheegay waxa la dhahaa halow malis maqal ma jira awriyada yaa wiilka inta ku jiro hal raacsiisto yaa inta alaabta la soo aruurinaya mid kale la doonin cusub yaa la soo bixinay hala joojiyo waa in loo sheegaa marka walaalihii qaaliga ah saa ujeediin halkaasaan yaa wax yar kala toosinaya insha Allah filterka kaas waaye oo jikada oo maxaa la qiica iyo markii wax la daaro iyo dabka saaidka markay jikada ay dhidideyso oo halkaas qiica ka bixiya marka xoogaa waxa wasakha korto ma fahanteen maalin ayaan dhaxdaasaan dhaqay uu fiican yahay laakiin korkaas ay wax dhan ay hadda ka qabsadeen gudaha uma sii gelin asiga rabaa marka inaan dhaqno insha Allah ma dhaqayno aan dhahe waa ka jafeena waan soo bixiyay geedka hadda waxaa geenayaa meeshii aan ku tirtiri lahaa insha Allah meesha alaabta lagu dhaqaa keenay wax weyn ma saaran ma fahanteen wax yaraa saaran marka haddii aad iska sii dhaaftid waxaa arkaysaa geedka dhamaayo xirmay oona maxaa la dhahaa waxna kaa bixinaynin huurka gurigana oo guriga kugu soo noqdo oo ka bacdinaya wax cagaarka meelaha biyaha fadhiisteen camal oo guriga kaaga dhasho waa kaasaa marka nadiif sidaas u yahay maxaa la dhahaa laba meeloo yara waxaa ugu dhaganayay wax yar waxaa doonta istakiina dhahaa la ii keeno istakiinka ugu soo qabta ma fahanteen haddana geedkii oon soo tirtiray oo wasaqdii aan kasoo bixiyay soo qaaday booskiisa aan ku celiyay saa ujeediin
rinjiga insha allah waxaa la mari doonaa markay kuleelka noo imaado hadduu ilaahay raali ka dhigo. Meeshan waxaa ku hayaa waxaa waaye shukumilka ilmaha ugu suubinayaa ama jukulaatada boodarka ah waaye halkan caag ku jirto. maasha allah tabaarakallah, qaboow baa la galay, ilmaha way kaa caawineysaa geedan. insha allah kula dadaala, energy ka helayaan fahantiin iyo kuleel ayay ka helayaan. marka qaboow baa imaaday alxamdulilah, ilaah ma hadda iskale. jawiga waxaa waaye wuu isbedelay. gabadheedii yaraa ila joogto oo waxay taagan tahay digsiga maa ku shubtid waxaa ugu shubtid bakeeriga marka hore oo kabacdi caanaha ugu daray. haddana ana waxaan dhahay hooyo inta waxaa saas ugu shubaya waxaan diidaa inay kuuskuus iga yeelato, intaa si fiican ugu qasaya kabacdi digsiga ku shubaa caanaha ku jiro. okay waxa meesha isku qorqoran maxaa waaye hooyo, qoraalka meesha isku qoran ee akhrinaysa. markaas waxaan ku dhahay hooyo fitamiinada ku jiro waaye. ay tiri hadda waxaasoo fitamiin maa ku jiro haa oo saas may u fiican tahay haa haa hooyo ilmaha way u fiican tahay ma oho haa ilmaha loo soo saaray ilmihii u fiican tahay hayay taagan tahay. ma fahantay ilmaha waxaa waaye maasha allah ilaah barakeeyo, wax walba waxay jecel yihiin inay ogaadaan sababta loo suubinayo iyo sababta usoo gaday iyo sababta waxaan meesha ugu yaalaa inay ogaadaan ay jecel yihiin caruurta. allah noo dhaafo. saa ujeedin inta caanihi noogu diyaarsanayo walaalaha qaaliga ah oo dabka noo saaran maasha allah. hadda way kareen waa ka daminayaa. intan waxaa ku karsadnayna hadduu ilaah raali ka dhigaa misir iyo bariis nay salbuko iyo bariis misir iga dheh salbuko iyo bariis waa fahanteen maasha allah. digir iyo bariis digir iyo galley wax soo cuno ma fahanteen ya. salbuko iyo bariis ay ka shidan tahay alxamdulilah. ilaahay ha siiyo intaa haysanin, annagana allah noo saa-idiyo. marka qabooba imaado waxaa waaye bariis iyo baasto keliya ma la cuni karo ma fahanteen, waa la isku dhexdhacaa qaboob makaa difaacayo. marka waa kaas ahay. hadda waxaa waaye bariiskan ku darayaa geedan karis badan ma qaado. yaa ku saar inta ay soo degano saare anoo jikada ka shaqeynayo. kursigaa la saare miiskaa la saare maxaa yaalo wixii kuraasahan oo dhan iqadow ka idin furayaa wuxuu idhahayaa abdaabka ma sii xiraynin qolkiisa farac abdaabka iyo xiraadhaha oo asoo fara ka taga hay waa xiray marka inta soo saare kuraas dhan waa ka wareejinay uu ka degi karaa waa barashada loo subinaa ma degi kariyo waa cabsanoyaa uu soo fikra baan waay hay soo daga cabsanne nin weynaa tahay sheeka hada xamaam sheeka had kuraas halkaasaa ka dhigtay shukumeelkagee waxyar soo qaboobay saa-idna aan u qaboobin qandac in lagu cabay macaan ku taa ma fahanteen ayaa halkan ugu shashubaa ilmahaasaa ujeediin maasha allah tabaarakallah mala soo koobi karo. sokor maa ku dartee maya sokor ma ku darin iyadaa sokorta wadato ma fahanteen. ilmaha markay waaweynaada iska sokor jecel yihiin qofka rabto iyadaa waxyar iskaga darsanayso laakiin caadi ahaan laguma daro sokor mana lagu kariyo. saas u ogaada insha allah hadduu ilaah raali ka dhiga. laakiin dadku waaweyn way ku darsadaan iyadoo macaan haddana way kusii darsadaan ma aqaani sababta. marka waa kaasaa halkaasaa kusoo shubay weelkaasaa ugu soo diyaariyey waxaa waaye waa usoo qaada miiska usoo saaraa qof walbaba yaa koobkiisu dhab siisanaa ma fahanteen maasha allah. caruurta xilligaa marka la gaaro difaac badan ay u baahan yihiin sababtoo ay hergab iyo wax badan iska imaanaya ma fahanteen quman xanuun iyo waatana digiri bariiskeeni maxaa la dhahaa salbukadii iyo bariiskeeni waa taasaa inay saas ku ahaato waa salbukada haddii kale waxay kaa noqonee dhajaqay kaa noqonee ma fahanteen. markaa karinaysid inaa u fiirsatid waaye si ayna kaaga noqonin hadhow bariiskii iyada waxay kaa noqonayaan dhooko caadi ma aha ma fahanteen ma fiicno. saanaa ka fiican inay furfur ku ahaato mooye maxaa lahaa musukaato inay ku ahaataa fiican. markaas sokorteedan ku darsanay saliidiina ku darsanay alxamdulilah. jikadina waa taasaa alaabtaas yarna waa dhaqay
ما شاء الله. وإن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maya.